indhaha qalbiga ka eeg ma fogo indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaan yaaragabo January sanadka bishiisa koobaad spring way halkan spring waxaan malaynaa ahaa talo spring way roobku waqtiga waad halkan uga da'o magaalada Seattle milgo waxay taagan tahay balcony-geeda waxay daawanaysaa Lake Washington oo hoosteeda ah oo sidii bad oo kale ah blue ah qurux badan roobkuna ku da'ayo biyuhu admoodo piano music raacanaysa halkaa midigtoo kale waxaa ka xigtaa buurta caanka ah ee Mount Rainier usaa usoo gangaaman oo roobkii jeegaan ku jeeni qaaran Allahu Akbar saa ugu jeeni qaaran aad moodo gabadh aroosa maasha Allah halkaasoo kale kasoo xigta iyadoo jaamacadda dhigatay University of Washington ayay aad u ag marmari jirtay buildingkan oo aan jaamacadda aad uga fogeyn oo biyaha aad moodo inuu kuba dhex jiro markaasay in badan waxay ka fikiri jirtay maalmaha kamid ah halkan aan degi doonaa ilaahay idinkii meel aad iska caashiqdaa jirta qalbigaaga maaragtay caashiqo oo dega qalbigaaga daartaa iyo say u samaysantihiin meeshay ku taallo qalbiga milgo ayay degtay markay ardayada ahayd milgo inkastoo ay California ku dhalatay oo ku kortay University of Washington ayay u timi bachelorkeedii inay ka qaadato walow ay sii jeclayd inay sii joogto oo masterskeedana halkan ka qaadato ka shaqayso iska degto programka ay doonaysay ayaa Stanford University ahaa oo California ku taala marka iyadoo runtii jeclayn inay ka tagto Seattle ayay masters programka u doonatay Stanford intiina way soo socotay asuunasay sidaa u dhamaysay Stanford iyadoo actually aan weli dhamaynba ayaa already Microsoft sii cadboonatay waa double major computer engineering iyo programming weligeed iyadu she was always good at math and science and she was always interested mar walba iyadu waxay interestkeedu ahaa waxyaabaha xisaabta iyo logic stuff maaragtay and waaba la isku dilayba waliba waxa aad ugu tartamayay Amazon iyo Microsoft bay dooratay waayo Microsoft and habdhaqankooda ayay jeclayd and Amazon aad may ugu degdegin waayo waxyaabo badan oo environmentka iyo waxyaabaha la xiriira waa yara environmentalist milgo ay awgeed ayay uga yara gaabisay adigu shaqadii bay soo qaadatay sidaa awgeed ayay ugu soo noqotay magaalada Seattle waa taa buildingkii ay jeclayda dreamkeedu ahaa degtay balcony-gii iyadoo fadhido koobkeedii shaaha cabayso marna buurtii Rainier and u qushuucaysa marna Lake Washington hoosta ka eegaysa ayay quruxdii telefonkeedii qaadatay oo intay saa dhabarka u jeedisay biyihii ay buurtii oo dhinac ka muuqatay iyo biyihii oo dhinac ka muuqda sawir iska qaaday iyo Snapchat yar oo Instagram ku turtay isla markiiba hooyadeed baa like saartay haboon telefonkuna isla markiiba wuu dhacay hooyadeed ay ka qabato markaasay tiri hooyo stop stalking me macaadi soo garaynaysaa ay ka daba dhigay aan ka istareexay ida markaasay tiri hooyadeed waan arkaa gurigii quruxda badnaa iyo biyihii iyo buurtii saad u enjoy garaynaysid goormaan imaada maya ha igu soo degdegin let me have the time aan ku enjoy garaynayo apartmentkayga iyo spacekayga si waqti yaroo aan horta anigu saral ku noqdo oo maaragtay ku yara raaxaysto spacekayga oo aan kula qabsado iyadii hooyadeed waa saaxiib waa curada Mahdi iyo Haboon ayaa iska dhalay aabaheed iyo hooyadeed dhowr iyo 30 sano ka hor ayay labaduba iyagoo jaamacad ka dhiganaya Mareykan isku state jooga Virginia laakiin laba magaalo kala duwan iskuul ka dhiganaya ayay isjeclaadeen aabaheed oo Somaliland tagay ayaa alaab loogu soo dhiibay Haboon
mahdi markuu soo noqday wadanka maadaama gabdha ku yaraayeen gabadhana uu dhowr jeer maqlay rag hadlayo le waa gabadh qurux badan reerkoodiina uu soo arkay oo uu kasoo helay ayuu wuxuu yidhi alaabta toos baan kugu keenayaa weekend muu rabin inuu diro inuu iyada soo arkuu rabin alaabadu saa u geeyaba love at first sight bay aabaheed iyo hooyadeed ahaayeen way isjeclaadeen dhowr sano kadibna way isguursadeen 30 sannadood bay isqabeen milgo waa 25 jir waa exactly agekii aabaheed iyo hooyadeed isku guursadeen hooyadeed intaa cagta u saarta waxay ku tiraahdaa goormaad guursanaysaa anigii adigu tartan baynu mar walba ku jirnaaye iyaduna hooyadeedna masters program bay haystaa iyo aabaheedba dee anaa ku dhaafaya waayo anigu by the time I'm 25 ahaa aqal baan lahaa 26 naadaanba ku dhalayba marka what's going on marka aad bay u kaftamaan aad bay isu jecelyihiin aad bay saaxiib yihiin habeen sabti soo gelayso aroos baa magaalada ka jira oo laga soo casumay milgo inanay saaxiib haayeen oo jaamacadda wada dhigan jireen asxaab guud haayeen ayaa aqal gelaysa downtownka lagu qabanaya hotel weyn ku yaala FaceTime bay ku wada jiraan oo markaas ku tiri bal toobkay tusaad soo iibsatad caaw xiranayso ilaa a lot of eligible bachelors baa imanaya yaa aan kaayaga bedroomkii bay gashay oo toobkii bay soo saarto muraayadii bay la istaagto saa isugu qabatayoo habboon toobkii bay kaasho xirto toob qurux badan oo maxaad u wanaysaayo shaalkii bay soo qabato shaalkiina saasay ugu dul tuurtay oo labadoodii oo toobkii ka sheekaysanayaba baa mahdi soo daba istaagay habboon markaasay halkaa ka aragtay milgo aabaheed markaasay tiri hi abo markaasuu yidhi how is my sharaf milgo maadaama ay sharafta tahay milgo hooyadeeda ugu yeedhaa aabaheedna sharaf buu la baxay ii waran aabe I'm doing well markaasay tiri waan fiicanhay abaarmankaagii cusbaa ka warran waan arkaa inay hooyadaa nafta kuu keentay intaa teleefon kula dul taagan tahay FaceTime kula dul taagan tahay gabadha iska daadee ha kaa enjoy garayso waqtigeeda waa daddy's little girl waa curadoodii aabaheed iyo hooyadeedba aad bay saaxiib yihiin aabaheed laakiin waxa weeyaan aad bay isu fahmaan they click all the time habboon baa tiri milgo soo ma ogid aabaha inuu Somaliland u socdo markaasay milga tiri of course I know markaasay tiri dee jiimka kama baxo intaa he's pumping I don't know what's going on waxaan ka baqayaa in mid yar lagu soo lifaaqo tolmii soo guursanaya ilaa waa waqtigii midlife crisiskii baa lagu jiraa markaas uu ka yara dhaqaaqo intuu soo noqday haddana soo daba istaagay uu yidhi aabo maxaa aniga gabadh kale ii sheegaysaa jeexaygii midig beri horaan helay yaa bal ka dhaadhici hooyada yes I've been working out lakin I'm working out for her dhowrii 50 jir baan ahay hadeerto iyadaan isu geegeejinaya inaanu qurux badnaadaan rabaa warsamaa noogu dambeeyayoo naga guur week ago oo jaamacad buu bilaabay 3 caruur oo kale ay dhalatay 2 masterstoodii bay already wadaan dalmarna inanka ugu yar weeyaan oo hadeeru jaamacad bilaabay marka waa empty nester habboon iyo mahdi markaasuu yidhi iyadaan isaga shaqaynayaa iyadaan rabaa inaan gacanta qabsado hadeeraan rabnaa inaan dib isu dheyd karayno oo dib isu barano ma annagaa waqtiba isu hellayba markiiba waa dhaldhalateene marka waa reer yaroo jamjama oo kaftan miidhana oo kaale araga markaasay milgo intay saa wagta tiri you guys are setting the bar too high baarka meel sare aad baad marmarka qaarkood markaan fikro waxaan dhahdaa jacaylkii adduunka oo dhan labadiinaa laydin siiyey ilaa haddeer saaxiib best friends baa tihiin saa isu koolkoolinaya oo saa u kaftamaya saa isu jecel I don't know inaanu anagu nasiibkaa yeelan doono aad maaragtay labadiina intiiba qaatay malaa reerkeena loogu talagalay markaasuu intuu aabaheed saa iga yidhi milgo aabe no aabe don't say that there are plenty of amazing men Somali men out there inama badan oo Soomaaliyada wanaagsan baa buuxa oo waliba waqtigeedii ka fiican oo dibadahan qaarkood ku dhaldhashay oo maaragtay the best of both worlds isku darsaday labadii adduunba wanaagoodii isku darsaday maaragtay waxaad helaysaa inaan muslimnimadii iyo dhaqankii intii wanaagsaneyd ee Soomaalida ahayd maaragtay Soomaalida ka haysta intii kalena de waxyaabihii wanaagsanaayo western ka ahaana dee qaatay sidaadoo kale markaasuu hees ugu dhuftay heestii cabdiqays buu ugu dhuftay uu odhan jiray ilaahay nin caasiya yaanu cuduuda kuu gelin ilaahay nin cadha badan yaanu cidhiibta kuu sudhin aabba midaan ku caashaqin
yaanu calaafba ku geyn noloshaadu caarcaar yo ciriim la noqon milgoy markaasay ilmo isku soo taagtaagtay milgo markaasuu intuu hooyadeed halkaa ka dhunkaday yidhi aabe jiibkii baa ku cararayaa khayr baynu isku ognahay nabada I love you abo I love you baa la isku yidho abeed buu ka dhaqaajiyey hooyadeeda isku hadheen markaasay ilmo yar saa isaga tirtirtay markaasay hooyadeed ku tiri why are you crying maxaad la weysaa hooyo markaasay tiri I'm so proud of abo aabaan maaragtay dee aabahay aad baan u jeclahay oo ugu faraxsanahay he's such a good man waa nin wanaagsan aabahay iyo nin sharaf leh an honorable man markaasay hooyadeedna tiri indeed waa runtaa hooyo I'm very lucky aad baan nasiib badanahay laakiin don't worry caawa inama badan baad meesha waxbaa igu leh something's going to happen caawa milgoy caawa waxbaa igu leh something's going to happen yeah kusoo duceynaya hooyo khayr baan kuu rajeynaya nabad ay have a good time teleefonkii bay kala dhigayaan milgo markiiba weydiiyaa garoobaysaa muraayadii bay hortaagantahay makeupkeedii bay yaraabay jiqs ku siisay waa 5 115 pounds aada isaga shaqayso batiidahoo qurxley ah maariin dhalaal xiga ilka yararoo simanoo cadcad indha yaryaroo light brown ah waa quruxdii soomaalida ee asliga ahayd bay leedahay qotan wanaagsan milga qotan wanaagsan baa la yidhaahdaa tima adigu garbaha meelaha jooga oo timihiina intay saa u qabatay halkaasaa uga yaro xidhay ayay shaalkeediina sidaa jag isugu siisay deetana muraayadii bay saa u hor istaagtay iyadoo isu yaro qushuucday shandadeedii yareydna saa u qabsatay oo saa isu qutumisay isu yaro bogtay ayaa uubarkii raydhkeedii hoos soo istaagay hoos bay u degtay gaarigii bay ku dhacday hoteelkii bay timi inkastoo ay ogeyd arooskani dad yareer inay yihiin oo maaragtay on time ku bilaabmayo xoogaa welcomekii markay soo gelayeen bay yaro misgaraysay heestii ugu horreysay oo caruuskii caruusada ku ciyaarayaan ayay soo gashay markaasay was so beautiful maaragtay dhowr qof oo kalena dance floorkii lasoo galeen miiskeedii bay eegatay way heshay way fadhiisatay markii heestii ugu horreysay ee caruuskii caruusada ku ciyaareen ay dhammaatay ayaa hees dhaanta ahoo aada u socota hadeeroo dhalinyaradu aada u jeceliyiin soo gasho dance floorkii baa lagu wada yaacay marka dance floorkii lagu yaacay iyadu weli waxay rabtaa inay bal yaro eegto oo dee dheydna ma haysato cidna lama socoto keligeed ay ahayd gabadh kaloo ay saaxiib yihiin oo iyaduna asxaab guud yihiin saaxiib kalowsa aanay ahayn oo dhalinyarada ay jaamacadda isla tageen kamid a ayaa iyadna miiska la fadhida gabadhi baa ku tiri kaalay la ciyaar markaasay ku tiri maya horta bal inaan wax yaro eegaan rabaayo gabadhii baa gacanta ku dhigtay tiri naga soo kac way soo kaceen oo labadoodina dance floorkii bay soo galeen meel yaroo corner oo way iska ciyaareenoo say u ciyaaraysay uunbaa halkaasoo kale oo maaragtay horteedii ahayd indhaheedu waxay ku dhaceen bahal inan aho joog iyo jamaal ilaahay u buuxiyayo quruxda haybadda very very handsome guy oo siduu ciyaarayo siduu u urursan yahay siduu u dhowrsan yahay siduu isleeyahay isla markiiba sidii shoog ku dhacay oo kale attentionkeedii oo dhami meel buu qabsaday say u eegaysay buu isna markii dambe arkay iyadoo eegayso markaasay indhahoodu isku dhaceen they locked eyes indhihiibay isku si fiican isaga buuxsadeen labadiiba markaasuu yaro qoslay iyadna yaro qosasho labadiiba way qosleen oo hoos ba eegeen oo danskoodiiba iska sii wateen oo heestii baa dhamaatay oo danskiibay ka baxday miiskii bay ku noqotay isagu ciyaartiisiibuu iska sii watay gabadhii saaxiibadeeda ku tiri gabadhii ay isku jaamacadda ahaayeen miiska iyadna la fadhiday bay waxa ku tiri who is that guy wiilkaasi miyaa taqaanaa markaasay tiri oh which guy markaasay ku tiri wiilkaa markaasay u tilmaantay markaasay tiri oh yeah that's Billy his name is Billy markaasay tiri Somali ba he doesn't exactly look Somali wuxuu u ekaan karaa inuu meel waxaad moodaa in wax ku jiraan maaragtay iska dhal u yara yahay ama African American iyo cadaan iyo wax iska dhaleen markaasay ku tiri he's Somali markaasay tiri yes he's half Somali half African American but his grandmother
ayadii baa cad hooyadii dhashay. She's like, wow, I've never seen him before. Hore ugumaan arag halkan. Markaasay tiri, yeah, he's actually a big shot attorney. Really? Waa lawyer bay tiri, big shot dhaho. Wow. Isla markiiba waxbaa yara degay milko. ilaahay qaybteeda dambe way ugu dheeraatay. nooli kulantee khayri barwaaqan mirjeeniya dooda wada. What do you think is going to happen? Remember, magaca ka fikir. Mahadho. khayr baan idin rajeynaya. nabadee. indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, waxaan yaaraga